tan soo hartay oo laga dhawaajiyay iyadana galabta aan rabaa inaan laba kalmad ka iraahdo xamar oo yiri wadaad ka hadlaayay waxa ku qoran inaan la kala lahayn war adduunyada hore u martay fiiriya London ta hadda aan joogno fiiriya Bristol Rome fiiriya magaalooyinkan 5,000 sano xorta ah wala kala leeyahay ninka hadda ka yimaada Napoli toos Rome iska ma degi karo sharciya jira kala hagaay marka in nin walba meeshiisa lagu qadriyo meeshuu ka yimid la ogaado meeshuu degan yahay xaq u leeyahay la ogaado waxa way qawaaniin caalami ah way maana meesha foodo way maqlaqa laha wax soconay ma aha tan aan ku soo gunaanadahay hadalka maraba inaan ku dheeraado annaga waxaan ku nimid taageerada malaaqa oo aan taageersanahay oo Ilaahay uga baryayna xilkiisa Ilaahay u fududeeyo dastuurkan xoogaa abashadiisa meelaha badan ka soo yeertayna in wixii xun laga saaro oo wixii fiican lagu bedelo laakiin aan dastuur la'aan la dhigin maxaa yeelay wadanka waa u baahan yahay dastuur waa u baahan yahay in laga baxo ku meel gaarnimada waa u baahan yahay inaan cod yeelano safaaradihiisa soo noqdaan oo Soomaaliya ay dawlad noqoto laakiin haddaanan dastuurkaas la barbaarayna oo la akidin walaga ku milyaar aad ku jiraysaa ku noqonaysaa marka nin allaala ninkii aqoon-yahana ama duuba ama gabadhi baaragtay wax taqaano meesha ay filaysa in laga bedelo xaqay u leedahay ha sheegto hana qorto waan la qadarnaa qoraalkeeda waxaan uga baxayaa khudbadeeda wax badan lama soo istaagin duubabkani waxa way duubab weligood jiri jiray dawladdan waxa uga baaqayaa dawladda inay taqadiriso duubabka ugana dambayso talada wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh gudoomiyaha odayaasha UK Shariif Axmed Dey aad buu maasiyay bal markaana waxaan u Umar Xasan Umar Taay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هر الله شيء قال ملنا تاريخ الملاقة وعن ربينا أنه وحير كإلى هذا الملاقة وملاقة سيد الشيء أما عاول الله قرتينه بهاي ملاقة صوماليات ما ملاقة حمر يحمر ده ما ملاقة لا حر ديره ما ملاقة لا هيره وحنو قرنا عاونوا بهاي ملاقة صوماليات تاريخ ملاقة مركز سوق هذا نو قياستي waxaan u maleynaa 500 sano ka hor ayaa dubku u horeeyay xamar gudihiisa lagu sameeyay special meesha la yiraahdo raqayga xamar weyne waxa la dhihi jiray Malaaq Aybakar waxaan u maleynaa kan hadda maanta aan caawa taageeraynana waa kii tobnaad taariikhan wala muddo dhexe oo kala go uu galay dawladii kacaanka iyo wixii ka dambeeyay ilaa 93 kii dambeeyay ee la duubay wuxuu ahaa Malaaq Shawri waxaana lagu duubay magaalada Muqdisho nawaaxigeeda 10 May 93 waxaan dhintaan u maleynaa 2004 dabayaaqadeedii taariikhda saxda ma hayo hadda laakiin waxa automatic ula wareegay Cali Malaaq Shawri taariikhan Malaaq waa dub kamid ah dubabka Soomaaliyeed waxaana lagu duubaa magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda Malaaq horeeyay wuxuu ahaa Malaaq Aybakar Malaaq Aybakar ayuu ahaa Malaaq ku xigay wuxuu ahaa Malaaq Maxamed Cali Nuur Malaaq saddexaad wuxuu ahaa Malaaq Nuur Malaaq afaraad wuxuu ahaa Malaaq Culuw Malaaq shanaad wuxuu ahaa Malaaq Nuur Barre Malaaq lixaad wuxuu ahaa Malaaq Sheekh Muumin Malaaq toddobaad wuxuu ahaa Malaaq Muudey Malaaq sideed wuxuu ahaa Malaaq Xaamud iyo Malaaq Shawri oo ahaa kii 93 la dubo kii 9aad haddana waxa jooga wiilkiisa oo ka dhaxlay Cali Malaaq Shawri
taariikhaan waxay soo taxnaayeen muddo ilaa nus qarniya kii ugu horeyna sidaan hore u sheegay waxaa lagu duubay raqayga xamarweyne oo xilligaas uu ahayd degaan waxaan rabaa inaan u gudbo qodobka labaad dastuurka waxaan u malaynaa dastuurka kolley rag badan hortay ka hadlay khiyaar badan ma filaayo in maaragtay aan kusii dheeraado waqtigii maqribka salaada la galay waxaan u malaynaa waaba la isla gartayba in wax laga bedelo madaxweynaha sarreeyna waa ayiday ummadda Soomaaliyeed dhammaan waa aragtay waxay isla garatay in laga gudbo in wax laga bedelo in loo gudbo dastuurka in wax laga bedelo marka mahadsantiin salaadii maqribkan galina malaynaa way hadda ka dambeeyay والسلام عليكم ورحمة الله. أحمد عوالة بيت. السلام عليكم. horta anigu wax badan inaan hadlo uma soo istaagin waxaan u maleynayaa gabdhaha quruxda badan iyo ragga sida fiican u labisan ee caawa halkan isugu yimid ee ku soo talagalay inay saboor gareeyaan ama taageeradooda siiyaan malaakha waa markii igu horeysay ee aan meel sidaan oo kale aan imaado laakiin caawa waxaa sharaf ii ah inaan imaado malaakhi shir lagu saboor gareynayo inaan ka soo qayb galo waa ayaan ku faraxsanahay sababta waxa weeye rag badan baa xamar ka hadlay waxaa laga yaabaa dadka xamar ka hadlay inkastoo beesha ay yihiin guud sheeganaya inayn xamar ku dhaqan inay ka yimaadeen 800 kilomitr ama 900 kilomitr ama 1,000 kilomitr laakiin anigu waxaan ku dhashay xamar waxaan u maleynayaa waxaan ku dhashay ninkii xamar yaqaana cusbitaal martini ribaarti numero 18 markayga horena waxaan ka imid Somaliland meesha hadda la baxday ama la saanood waxaana u soo istaagay xamar ayaan ku dhashay aabahayna wuxuu saaxiib la ahaa oo qabriga dhigay Allah u naxariistay labada waa dhinteen Abuubakar Gacal Abuubakar Gacal oo ka soo jeeda iridda xamar laga soo galo beeshii lahayd haddaba waxa weeye anigu malaakha waxaan gaarsiinaynaa mar hadduu xamar malaakh u yahay dee Soomaali oo dhan malaakh buu u yahay marka dadkii lahaa muxuu ahaa gaarsiiye halka iyo halkan hala gaarsiiyo ee ku dagaalamayay kilometers Soomaaliya oo dhan buu u yahay ninka xamar u ahaa waa caasimadii ninka malaakh waana waa malaakhii Soomaaliya oo dhan marka waa inaan u fikirnaa sidaas oo kale ku dheeraan maayo hadalka waxaan ilaahay uga baryaynaa ama uga rajaynaynaa inuu malaakha cimri dheer siiyo iyo caafimaadba dagta uu leeyahay iyo waxa u socdana in ilaahay u dhib yareeyo waana inuu ogaado malaakhu inuu Soomaali oo dhan madax u yahay marka faataxada umara malaakha intaydan bixin in ilaahay darajada iyo awooddaas iyo waxa uu daleeyahay in ilaahay u dhib yareeyo wassalaamu calaykum waa tahay aad buu u mahadsan yahay Axmed Cawaale Bit waxaan filayaa ragga inay ku bateen waanada iyo dardaaranka ay tabeynaa waxaan tabeynaa hablaheena Soomaaliyeed markaana waxaan u yeerayaa gudoomiyaha gabdhaha Bristol Maama Maryan Jibriil السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا وردي ما يويلك واشرفي ما موينكي نحكمه نمامولها يوم مقالة نقول مامولها إياه شوقة لكن حوقها وحيرة هذين شغالها يكبدها هوسان وحرمنا إنها هولها نوقع قيب كلام ساسا مرك أواق بين هالكن سوي استاجو مرك أوجه الرئيسة وحن هانتي أنا أدو فرح سنة إن هالكن سوي استاجو إن كقيب قات التاجر هذا ملاك علي وتاريخ ذيسا أن أقولنا هي سوتشرين كه أن هانتي بنادر يحمرنا كلية ملاك أنا وهين هانتي إن الله أنت from Galkayo to إلا حمر إلا أنت كشيء سأيو ملاقي هاي تاريخ عنه وأن هاي مركو حلنا هاي عندي ملاقة أوديس واحد يدنا وأركته ملاقة أوديس ما حدنا ويبلارن تاي وارسي بلارن دونتها إن شاء الله ومركو ورا استاجر الملاقة مدة لبعض وأن تعلن لها إن هالكان وفائدته وحيتاي دستورك سومالي وهذا أد وجهه ورسنت هاي sida uu sheegay wiilkii khudbada iiga horeeyay hadda cid waliba horta aqoon uma laha dastuurka hase yeeshee huuhaa badan oo soo gaaraysa waxaad moodaa in cilado badan loo yeelayo marka waxaan anigu aaminsanahay Soomaali markaan nahay in kastoo dhibaato badan iyo dagaalo badan iyo kala jab badan nagu dhacay haddana waxaa jira wax naga dhaxeeya oo aan mudeysanahay oo calanka iyo dalkaani annaga ha noqoto kuwa naga dambeeya ha noqotee inuu san noqonin mid gacantayada ka siibta inuu gacantayada ku jirana ama generationada naga dambeeya jiilalka naga dambeeya ay u waayaan ama ay ku noolaadaanna waxa lagu heli karaa annagu mid hadda jirta maamulkeeda xubin kastoon ka noqono haddaan dalka joogno iyo haddaan dibadda joognaba inaan daacad ka noqono oo ummadana masalaysa ay meel kasta ha joogto ama ugaas ha noqoto ama malaaq ha noqoto ama duub ha noqoto ama garaad ha noqoto ama suldaan ha noqoto ama islaan ha noqdee ama shakhsi kasto annaga naga mid dumar iyo rag midku doon ha noqdee inuu waxa uu qabanayo wax shakhsiyan asaga daraqaas uu ku fushanay aysan noqonin ee wax ummad u aydo oo uga harto in ay noqoto adduunkana lagula macaamiltami karo waayo adduunkii wuxuu isugu dhamaaday in la macaamilo waayo annagu wadanaan lahayn baan ku nool nahay kuna nabad galnaa sharcigiisana aan ku harsanaa laakiin waa inaysan noqonin waxa la sameeyay waxa dalkeeni iyo dadkeeni iyo diinteeni iyo jiilasha dambe macnaha dhibaato u keeni kara oo aanan hadhowti gacantayada wixii aan ku dhiibno waxa la gacantaada midigtahay waxa la dhibka ku galiso waa la yiri say dhib ku galisay waa sahlan tahay say dhib kugu saartaa waa adag tahay Soomaalidu waagi hore gacanta ka dagaalami jirtay ahayd hadda laakiin kulay qalin baa lagu dagaalamaa marka ilaahay waxaan ka mahadinaynaa kuwa mas'uulka naga ah ee dalka yaga jira xilliga xun oo kala guurka ee ummaddu ku jirto kuwa nagu masala dadnimo iyo daacadnimo iyo Soomaalinimo iyo dan aan u ayno annaga iyo awlaadayada iyo awlaadoodu kuwa noqon ilaahay nooga dhigo marka intaasaan uga baxayaa malaaq waxaan ku leeyahay waa ku taageernay kii jira noqo kii maamulkiisa balaartan noqo kiina masala oo dalad la isugu yimaado inta uu mas'uulka ka yahay oo ku abtirsto Soomaalida Allah ka dhigo mac salaama